إلهي وحن كبر يا قبله إن حنوسا عذر كان وريجيو لا حنوسا ميل والبسكو روحيا حجابك حشمين لا يا إلهي وحن أقبر يا الله سوء عليو أو رشد قودي الله سوء عليو إيمان كودي الله سوء عليو أخلاق كودي الله سوء عليو حشوت كودي الله سوء عليو عز كودي شرف كودي دين كودي الله سوء عليو وحارنتي لي ويديي أن قبلها قروح ضبضن قبلها هنا صوماليات قروح ضبضن دينتين وكتل مانتي كنزي وحلا كيتسدو رجو او كيتسدو وحي ugu quruxda badnaa iyadoo qaarkood xiran xijaabiyo in ay banaankii gaaladii dhexdoodii inay u soo bixeen waa gaaladii la rabay dhaqanka wanaagsan in la tuso si ay diinta aan u jeclaysiina ayaa dhexdoodii inta la tagay akhlaaq xumo ay horaadkoodii iyo dambeedkoodii gabdhuhu isruxayaane oo ay wiilal yar yar iyagoo islaamo waaweyn ah ay haystaan oo ay ruxayaan oo ay dhudhunkanayaan sheekhow arrinkaas maxaad ka leedahay waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waa su-aal muddo aan la taamayey in mar uun bal dadka fikradoodii caqligoodu ay ku soo dhacdo marka hore jawaabta waxaan jeclahay in runtii Soomaali weyn in aan la wadaago walaalayaal gabdhaheena marka hore allaha inoo asturo xijaabka ilaahay waxaan ka bariyay xijaabkooda allaha u adkeeyo ciyaalo suuq dhurwaayo rag ah oo ku ciyaarana allaha ka koriyo cizigoodii iyo sharafkoodii ilaahay waxaan ka bariyay ilaahay kama qaado xishoodkii iyo iimaankii allaha u soo celiyo inta haysatana allaha u adkeeyo adduun iyo aakhiro gabdhaheena Soomaaliyeed allaha inoo ilaaliyo laakiin wareegan gabdhuhu wareegayaan oo ay meelaha isku ruxayaan banaanada ah runtii waa looga horeeyay waa dhaqan hore oo soo jiray laakiin dhaqankaas yaa iska leh gabdhaheenu ma aanay eegin yaa leh dhaqankan yaa leh aniga maxamed ahaan gabdhahan horaadkooda iyo dambeedkooda ruuxaya banaanka ku ruuxaya runtii waxaan oo ay soo badanayaan ilmihii yaryaraa ay arkayaan maanta hooyadood ama walaashooda isruuxaysa runtii markaan arkay inuu soo badanayo oo ay gabdhihii qaarkood uu ku dhacayo waxaan u bixiyey ilaa wax la yaraysta maahe waxaan u bixiyey cudurkan waa cudure allah naga koriyay waxaan u bixiyey wareejiyo cudurkan wareejiyo runtii wuu jiri jiray laakiin wuu naga fogaa waxaa cudurkan uu hayay qolo madow ah oo afrikaan ah oo uu dhaqan u ahaa in ay isruxaan inay iswareejiyaan oo ay wareejiyaan jirkooda qaar ka mid ah waa dhaqan gaal madow uu lahaa xataa kuwa caddaanka ma aha ilaa gaaladu kala fiicane dhaqankaas uu naga fogaa laakiin meediyaha ayaa imika noo soo guuriyey maadaama meediyihii internetkii adduunka oo dhan uu ka dhigay tuulo yar oo lagu wada nool yahay guryahani ayuu cudurkii wareejiyo soo galay cudurkan aad arkaysaan markan